Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada barashada cilmiga video editingka. Waa cashirkeenii labaad. Waxaan ku dhufanaynaa maanta waxaan soo kicinaa interfacekeena barana ayaan doonaya. Waxaan furaynaa Camtasia Studio 9. Saa ujeedid waxaa kusoo bixi doono new project, new record iyo open project. New project ayaan ku dhufanaynaa. waxyar kadib asiga ayaa soo shidmi doona hadduu ilaahay yiraahdo. Waana soo shidmay. Qaybtan koro waxaa la yirahdaa menu bar, file, edit, modify, views. waxyaabaha dhan waxaa la yirahdaa menu bar. Tan waa shaashada oo waxay inta shaqada ka wadno meesha ay noo maraysa, meesha aan ka arki lahayna waaye. qaybtan waa tools waaye. toolskan waxaa lagu soo bandhigaa atamyada ay ka kooban yihiin media. qaybtan ayaa lagu soo bandhigaa. haddii aan ku dhufto animationka kale, transition haddaan ku dhufto, behaviorka, animationska, intane laba qayb ayaa kugu jirto, visual effectiga iyo waxyaabahan dhan. marka intaan waa waxyaabaha aan qaadan doono hadduu ilaahay yiraahdo. qaybtan waxaa la yirahdaa waa qaybta ugu muhiimsan, timelineka ayaa la dhahaa. oo waxyaabihii aad soo gelisay meeshii aad ku jarjara lahayd ama ku editgaray lahayd waaye. kan waa property. haddii aad tutaabatna uu kusoo baxa lambar 2. isagana inaad shaashada wixii aad soo gelisay inaad weynaysid ama aad yarisid haddii aad u baahan tahay, inta ayaa ka arki doontaa. kan waxaa waaye kan shaashadii waaye. ama wuxuu kusoo dhawaanayaan inaad soo dhaweysid shaashada u baahan tahay. fit haddii aad shaashadoo dhan inaad wada aragtid aad u baahan tahay. kan jaritaankiisi waaye, inaad jartid shaashada haddii aad aragtid. kan waxaa waaye move, inaad qadqaadid waxyaabihii meeshii ka qarsoon aad kusoo saartid. kan inaad select ku sameysid waaye, kadibna aad weynaysid ama aad yaraysid. kan timelineka ayaa laga weynaya ama laga yaraa daqiiqadaha. toolskana waa toolskii lagu kala jarjaray goobigii, bastigii, kadkii. haddii aad gashad inaad laabtid daaratid, control z taabanaysa ama intaa ku dhufanaysa. kanna waa redo, meeshii haddii hadda aad kasoo laabato, haddii aad u baahato inaad u laabato, ama control y ku laaban kartaa ama intaa ku dhufan kartaa. marka guud ahaan intaan waxaan kusoo gabagabeyneynaa interfaceka. waxaa ka dambeeya cashirada ayaan wada gudagali doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. waana arki doonaa insha allahu tacaala. intaas ayaan kusoo gabagabeyn doonaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.